ciyaalada soo khaldasaan iyo shaqo qarana waa quraacdini bir horaan ka hadlayaan chakula yeet weeye chocolaatada soo wad malena soo chocolaatada ana ku jirnaa waajibaadkeeni gudashadeeni waajibaadka difaacista dalka iyo diinta iyo dadka cadawga ummadda Soomaaliyeed jimhada argixisada ee Muuse Shaani wuxuu isku dayay maalintii labaad oo toos wuxuu isku dayay inuu soo weeraro dadka iyo deegaanka iyo dalkiina iyo magaaladiina wuuna ku fashilmay wuxuuna kala kulmay muxuu ahaayay jab iyo halaag waxaan u sheegayaa ummadda islaamka annagu waxaan ilaashanana maatideena iyo ummadeena iyo hooyooyinkeen iyo aabayaasheen xaq baan u leenahay inaan ilaashano wuxuu ahaayay sharcigu wuxuu qabaa naftaada iyo maalkaaga iyo diintaada iyo cirdigaaga iyo sharaftaada inaad difaacatid waxaan kaloo u sheegayaa beesha reer Sheekh Isaaq waxa la yiri laba qof haday isdisho وين قاتلانهم مقتتلون فاصلحوا بين أخويكم بالي لا بقولوا هدي يستشوا ولا لهينا ولا قبطة موسى شاني وأجنهي إن أدمحوها يكون رعسنتين كلام بقول كي بس ديتن حمانت وأذكر لهم محوها عيدا كقرن وأشوف كيس هجوتو عيدا كقرن حدودها صحراء حدودهن إلهي وحو يري إني جعلوا في الأرض خليفة أنا أروك كي لي خليف قروا الب حكمته موسى شاني خليف حكي هرجيسي برعو ليش أنا كخليف كوريل شاني هذول غير كوريل يعني أنا غير كي أنا كوريل horta ogaado talabaadna waxa leenahay anaga wax kala ma naqaanaba hadana hay dadka deegaanka Soomaaliya sanad jacay sayidkii baa nagala dardaarmay lix halkaad ku joogtaan dagaal laabta ku ogaada buli wax kala ma naqaanaba 1905 Soomaaliyan xabada qoomba anaga baan xabad ridinay adina waxay rabtaa maanta oo la marayo qarniga 2023 inaad anana muquunisid oo anaga muxuu hayo noo dawladaysid oo anaga qorin muxuu hayo aad shaqadaydu waad ugu haysataaba waxaan ku leenahay waxba ha qaadan waanada UN-ka waxay ku sheegay ha qaadani ummadda islaamka waxay ku sheegay qaadani dawladda federaalka iyo madaxweynaha sharafta Xasan Sheekh wuxuu ku sheegay qaadani soo wad geedkaad gaadhid mira ka guraaya annagu waxaan nahay dadkii deegaanka ahaa xaq baana u leenahay inaan difaacno oo ka difaacno dhiigabada noocaas oo kala inaan ka difaacno xaq baan u leenahay waana dirirnaa inta naftu lagu jirto inta aad hawshaada wadid anana taayadan wadanana adeer ee wixii aan kala helno baan wax ku qaybsananaa nafla caarigi wuxuu ku baday inaad duqeyn madaafiic goobta isticmaashid madaafiicda goobtana waxay ku dhacaysaa hafisaan hurda oday masaajid ka soo baxay dhakhtar nayrasa gabadh yar oo canjeelo dubanaysa kuwaasna meel bay loogu qoray anaga waa qoranana liiskooda yawm min al-ayyamna oo kula xisaabtamana halkaas aan kugu soo dhigana halkaas sidii Colonel Gaddafi waa lagu kufsanaya maalmaha kamida insha Allah bidnillaahi kariim waxaan kaloo u sheegaynaa muxuu ahaayay xukuumadda iyo dawladda federaalka Soomaaliya way ku mahadsan yihiin taakulada iyo taageerada ay nasiisay daweynta dhaawaca iyo dawada inoo soo dhibtay waa uga mahadcelinaa aad iyo aad baan halkan uga mahadcelinaa in alaalayntii nagu raacsan inaan Soomaaliya kala goyna waa uga mahadcelinaa muxuu ahaayay taageerada ay nagu taageereen mowqifkeena meeshana mabda la isku haweeyay waxa weeye Soomaaliya hal kala gooyo oo Talyaani iyo Ingiriis loo kala qaybin intuu guumeystay iyo hal la isku hayo anagu waxay taaganahay hadaan nahay beelaha diga gobolka Sool iyo Sanaag gobolada Sool iyo Sanaag yaciin Soomaaliya kala gooy maysan inta noolaay wiil haduu naga haray wiil wallahi gaan loo kala gooy Soomaaliya muusana wuu riyoonayaa inaad riyootid waxa ka horeysa inaad seexatid inta nool anaga adeer Soomaaliya kala gooy Soomaaliya waxa weeye raas Galboon ila raas Casayr anagana Ilaahay nagu booyaray anagana waajibkii naga saaran yahay qodobka 9 wuxuu qorayaa midnimada iyo isku haynta ummadda Soomaaliyeed waa muqaddas wayna og yihiin 6 xildhibaan baad ku leeyihiin reerkiisa reer Barco Soomaaliya wayna og yihiin dastuurka maalin walba way akhrisaa boorsada ugu jira in Soomaaliya la kala gooyo meesha ku qoran tahay dastuurka laga soo saaro waxaana la weydiinayaa su'aashaas Maxamed Xaashi Cabdilaahi iyo wasiirka ku-xigeenka Saarax run hala isu sheego adeer haddii Soomaaliya rabta in la kala gooyo dastuurka lagu soo qoro haddii aan rabina waa taqaanaa dastuurka si fiican u taqaanaa akhriso qodobkiisa 9 midnimada iyo isku haynta jamhuuriyadda iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed qodobkiisa koowaad farqada baba qoraysa dadka yaan la lugooynin marjaca kaliya loo noqonayo waxa weeye dastuurka iyo kitaabka meel kaga qoran labadaba in la kala gooyo Soomaaliya kaartooyinka uu isticmaalayo Muuse wuxuu isticmaalayaa waxa weeye kaartooy isticmaalaya waa tii hore laga tagi weeye annaga waxaan ahay electronic age isagana waa atomic age waa dadkii oo 60kii iyo 70kii naqshadii la isticmaalayay oo isticmaalaya waa laga ilbaxay atomic age ka isticmaalaysid adduunka hadda wuxuu marayaa neutronic waxa la isku dareeyaa laser iyo drone iyo muxuu ahaayay bayrakdaar waa laga ilbaxay kaarayaashan soo dhaxalaystay oo maalin barijiga ka bedeshid inaad uga cali waxaan ku leenahay suuqa ciidanka intaad Alibaba intaad wactid hub cudan iyo farax fiican ka soo iibso waxaan kala u sheegayaa
aniga ciidanka weligay kuma arag dhowr iyo 10 sano ciidan ahaa kuma arag qof aan sayno oo haddana iga codsanaya inaan isdiibo mikrofonna weligay ma arag samiicad korneyl intuu samiicad soo fulay gaari dhahaya isdiib ciidanka qaranka isku dhiib hadda odaygii soo dirtay oo siflaboodada ahaa oo howlgelinta joogay oo korneylkii maalintii la dimanayay miino wuxuu dhintay isagoo dhahaya isdiiba annaga ma nihin ergo isagana ergo maaha waa field operation meeshan waa field dhimasho weeye deadline weeye waa dangerous waa meel riski ah inaad samiicad gaari intaad soo saartid madax la soo baxdid oo saqafka lagu gooyo koorsaa ka dhiman waxaan ka codsanaynaa inuu koorsi ku celiyo oo tababar fiican hal koorsaa u dhiman hal koorso inuu diro isagoo le waa dhiman waa isdiiba saqafkaa sare la jaray markaasuu gaarigaa la galgashay darawalkii dawaqay isagii darawalkii gaariga waxaa isla dilay qooqantii waxa yidhi